السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaa idinku salaanta islaamka midda ugu qiimo iyo qaayaha badan hal soo dhawaada inta samaha jecel inta la wareegaysa xumaatadana shirtooda deyran dhammaan Soomaali weyn meel kasta adduunka ay kaga sugan tahay waa salaamaya waxaan ku salaamaya salaanta islaamka. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا قصان أدي أنا قصان هاي أنا صانع وكيالي يصدق بدعوه يا حال سود وهذا Soomaali balana waxaan ugu qaaday inaan maaragtay karbash aan u kala reebin marka dhamaantood karbashkaas ku soconayo hatta kuwa aniga asxaabta because asxaabteyda ani gadaal ay dhigtay asxaabteyda hore iima wado marka karbash balano inta kacaayo iyo beejkaas hore u socdo micnaheedu ma arki karto gabdha qaar waxay tiri indhaha markay saaraan qof hore u socdo markay arkaan waxa tira jirka way gubanaysaa iyada dhanba way iscuncunaysaa tan say meeshan ku gaartay tan say u hadloosaa tan dharkan ay wadato intee ka keentay tan nolosha intee ka keentay tan awoodda intee ka keentay tan soo dhahayaa jiro naayaa idin kareeda biyaashta halkaas naagta igu jirto oo doofaarta oo ii sheer gareeneen now naayaa left qaado now iga bax beejkayga daawanin haddaa xaasitaa beejkayga daawanin naayaa waryaa adna haddaa xaasita oo ay dhalata oo doofaar dhalata oo aad ribna codkeyga inaa meel dheer gaarsiiso now gacantaada isku muuf garee gacantaada ooga bax meesha hay daawanin adeer daawasho diyaar aniga inaad i daawato oo aadan ii sheer garayn oo aadan i maqlin adeer heesta adaa lagugu karbaashaya heesta xasan aadan samatir adaa lagugu karbaashaya adeer haddaad fahmaysid haddaad fahmaynba ay kusoo celi heesta karbaashkaas heesta way soconaysaa ilaa aad isgarataan asxaabta meeshaad ku jirto ilaa meesha aad ka dhacdid adiga oo adiga carartid waa lagugu wadayaa heesta ama aad noqoto asxaab fiican oo
ضعيف دليو حيوان دليو لسود ديستيو اسكفوفو واد اسكفوفتا سوماليدو وا اسكفوفا وا حيوان وا حسد وا دلي وا ظلمي سومالي أركتيا سومالي أركتيا ظلمي عندها صارتيا هي انت ادونك ددكو kala gooshay oo adduunka dayaxa la tagay oo adduunka la tartamay oo adduunka la orday waxay ka dhammaan la yihiin qabiil hebel ba halkan maray iyo gabar qabiilkaas hadashay wixii dooro digaag ba qabiil loo yeelaya digaag meel maray hadii la arko waxa leeyahay digaaggaas reebel ba iska marka carwakaas Soomaali ba aqli leh bal ku soo qormeesha عر صومالي وأقليلو عر سوقر وكاس عر سوقر صومالي ودلي وضعيف ودقمة ودام وديسكاستن وريبن وهوغو با وسلع دن دقن هداد مقشو صومالي وقمو ليلي جوك تبا دقن هداد مقشو صومالي وقمو صومالي وقمو وانكو داي أفرطن سنة عريا الله يسكال الله ساسا الله يسكول دقنيا ساسا الله يسكول ولا يسسرية انتو أمد إلهي فوفتي بل هذا فيري أنا قبل محيط للغيابة مسلمات ودرسكيغا وصوماليغا إن معنيه أيضا كم مقنابة وحقيقة فعلا أنا عديها يغا ترتو هذا عديها يغا ماركت إلهي سي أنا قوة ترتان ليقات انت قبل داس مسلمات دا أنا شغل إيشغا كالهين aanan geeleenana hataa isku meel daaqin intaan gabadha ku maqnaan la anoo kareemaysto oo intaan kareen marsadaa yaa wuxuu Ilaahay si inta iska cuno yaa danahayga khaaska aniga yaa daheede iska raaco ayaa iga qiimo badan arwakaas Soomaali kala ka kari waa qof talaabo qaadi kara malaakiin talaabo qaada waa lagu dhagan yahay dhakab hayta xad ugu darsatay markaad igu dhagaysid يا هذا يقدر صدق مركز لغة إيجا دقيس بيت كيجي أنا عن إسكالها أو فردوس إبراهيم بهو اللي قصير ها بل صومالي إلى حاسد تاي أو صومالي فولش تاي أو صومالي دقن تاي أو صومالي حيوان نمن كود إننا قود واسكسي يا حساب تمام أقلي ماله أقلي لقو ما أركو دل هدي تشوغان يا هدي دبت تشوغان بوا حيوان وأسكك صعنة ما عرفت أسكك ما عرفت أسكك ملك مركا قعمها دقت صوّح وسقط قعمها كمان دعتان صومالي وسقط أص دعنا يسوكله because ورقبيالة إنتي بان كبوش كريني ولا ورقبيالة دك تشوك سد وروح أسكده ورقدونك لا حضرنا كأجسي درا نجح مال نجيب مدة صومالي وح مدة صومالي ده نجح مارت نجح ده هالكلا نجح من نعف دامان بأملي maybe because dhagax hadii la jijibiyo wax soo saar baa laga helaa dhagax guri baa lagu dhisan karaa hadii dhagaxaas inta mashiin loola tago la riiqo ama waxa laga sameyn karaa shamiitada oo dhulka lagu shamiiteeyo ama waxa laga sameyn karaa maxay ta guryaha laga dhisan karaa Soomaaliyay dal iyo duud meel aad joogtidbo hoog iyo baba ku yaala aakhirana adduunka markaad ka tagtana cadaab baa ka horeeyo illa wixii Ilaahay ka xarimay oo dhan baad sameysay قبيلك اللي تعارف أبالله إسكداي قبيلك يقرن كيس وحان أركع عيدا كي سوماليات قرن خرج كل سوقلي أو معلوم البواريه بالليل وحان واحد لوقت كي سكر معها مركا هيست الدقن بعدين دار هيا معلوم البقوة أنا هالك أجد داوض وحبا يشير جرين إن هيست الدقن باقصيسو قف قصة سومالي هيست الدقن باقصو عنيسو وكرباش حلال ولا يسوي دين كروية هيست مركا يقعدنا عيبا إدين دو مرينا هيا الدواء أساس إلا أن تقوم بقبيل واسكت إلا دين جاهل لما واسكت إلا دين واسكت دوبنان لا دين وحوا وقبسن لا دين إن هذا ولالتهين فير هذا باسبور كان هذا هوس ودع سدو صفر يستنينك سجودة باسبور كهوس بودع إلا مال بحنون يستنينك اسمه عيسى دار شيء تتبضل هالكاس مال حنوني وقبيل كبود الدار قبيل دبض قري مصابير كل دبض اللي يجلي شب يستاهل because ضد ما وأسكك سعنة ويان أسكك ما عرفت أضو قعمها مركا دقل سو أسكك ما صومالي وأسكك ريبينك قبلها إيه كفسك قبلها إيه ابن آدم من هنا ويكتكين دين إسلامك إتي قال منا ما هيسان لما نحبي أرديا مركا وأسكك قوضي إمرمرين أيان وإنان إسكك قويا قبل كودا وإنان الشيغان نندي صومالي إنان الشيغان نوي هادو وحي كدن بي أمريكا والولينا هادو وحي كدن بي
waddankan ku noolahay ayaan guryo ka gadanayaa waddankan ku noolahay baan joogayaa waddankaasaan ku nool alxamdulilah rabbil uskag maxaan uga baahana de uskag de waa uskag soconaya de soomaalidu waa uskag wey waa dirty Somali people is dirty too much dad oo xagee lagu arkay oo gabdhaha riib gareyna riibin abusing the woman waxaad ku soo caanbaxdeen inaad gabdhaha riib garaysaan inaad gabdhaha yastaan intaad gabadhii ku dhashay yasaysana car meel gaar minja baasto wir meel gaar adigana intaad riibin ku haysid gabar Soomaaliyeed ood gabar Soomaaliyeed yasaysid car wakaasa meel gaar adigana gaar wakaasa meel uskag yoo soconayo ceebta soconaysa diin dambe oo la igu soo dabagabadana waa habeenka xal ahaayo tagay kii garka caafka lahaa garka shaa dheer lahaa soo dadka ma qarxiyo oo dadka ma laayo oo dadka ma dilo oo hadda Soomaaliya magaalada Muqdisho soo kama bilaabanin kufsi too much meel kasta Soomaali degta soo kufsi kama bilaabanin oo gabdhaha riibin laguma samaynayo oo gabdhaha diinta looma samaysan oo gabdhaha diinta laguma abiyusay adar Soomaali waa ka baxay Mareykan baa ahay aniga saacadan laga bilaabo anu Mareykan baa ahay Mareykan cadde inda buluugland raacay inda buluugland gabdhahayga inda buluugland ku darsanayaa inda buluugland mustaqbal ka dhiganayaa inda buluugland raacay anu waa ka baxay Soomaali uskag waa ka baxay wax laga baxana way astaahilaan meel allaale iyo meeshaad Soomaali ku aragto dayuus aragtay najis aragtay wasakh aragtay aflagaada aragtay isku mashquul aragtay saasay gorodda isugula jiraan inay aqli yeeshaan waa habeenka xal ahaayo tagay oo dantooda raacdaan waa habeenka xal ahaayo tagay inay isku marnaadaan mooyaane inay sidaa isugu marnaadaan mooy war xageenu ku aragna diin lagu leeyahay masaajidkii inta la ordaa waxa lagu leeyahay masaajidka qabiil hebel baa iska naara shaqlag waaxid diinna ma lihdin islaamna ma tihin gaalna ma tihin laba dhexdaad heebaabaysan ceebtiina iigu imaado ani hadda wixii ka dambeeyo waxaan ceebtiina ahayn ka sheekayn maayo because gabdhihii Soomaaliyeed reeb baad nafta kaga qaateen saqiirka hataa waa kufsataan saqiirka waa kufsanaysaan ilmihii yaraaye laba jirka ah wax laydinku aamini ma lahan wax laydinku aaminaayo ma laha Soomaali maryoolay Soomaali uskag wax laydinku aaminaayo ma laha dalkii soo xaalufise diintii wasakhayse duunyadii la qaday oo dabada ka dhigtay inaad dhimanaysaanba isma moodaanba wajiga Ilaahay baa lagu xisaabtami doonaa dadka la baabi'inayo dadka la iska dilayo waxa ka soconaya Soomaaliya wax dhagahan ay maqli karaan ma aha dhagahan ma maqli karaan dhaayana lama saari karo wax Soomaaliya ka socdo dhaayana lama saari karo dhagahanna waxay maqli karaan ma aha waxaas oo dhan heerkaas wax idin gaarsiina waa qabiil hadda arda sanabiya intaad soo iibsataan intaad sanab soo gadataan Allahu akbar anoo reehebala haye landin malihide kitaabka quraanka xaguu ka sheegay in diin lagu dilo dadka hadda maalin dhaweeyta arkaysan wixii ka dhacay magaalada Muqdisho naaga waaweyn Ilaahay baa weyn waaxid wiil dilay maxay siraaji wiilkii dilay waa arkaysan naaga inta soo qaateen waa isla qumayhiinba maxaa loo dilay maxaa aydiid loo dilay maxaa loo dilay balaq ma soo qaadanin mana ka hadlin hataa because aniga dulmiga noocaasa anu garab ma siiyo dadka dulmiga iyo qudunka saaxiibka ka dhigtay ee qabyaalada hooskeeda harsado anu ma siiyo garab ee waa karbaasha waxaana garab ku siinayaa haddii odaygan hadda meesha fadhiyo uu cadaaladda sida ugu socdo asagaan soo garab istaagaya qof allaale iyo qofkii cadaalad ka shaqeey baa anu garab siinaya anigu ma hooyaday baa dhashay xeetoley wadaadka kursiga ii saaran hadduu cadaalad la yimaado waanu taageeraynaa hadduu cadaalad darro la imaado carsado ilaa waa loo goodiyey gabdhaha ahaabaa waxay ku baaqeen inay qaadanayaan hubka oo ay laynayaan qabiilo ka mid ah Soomaalida marka Allahu akbar intaad istaagto markaad istaagto ma aragtay waxaad tiraahdaa salaad ha tukani wax la dhaho qabiilka ku xiro usalli waxaad tiraahdaa anaa hadda kuu sheegay waxaad ku xidhan lahayd usalli faradal habargidir usalli faradal abgaal abgaal baan u sujuudayaa anoo abgaalah usalli faradal shiiqaal usalli faradal ogaadeeniyah usalli faradal saas dhaha anaa hadda idin siinayo kaarta fiican oo idin soconayso kaartada idin soconayso waxay tahay qof walbo qabiilkaaga ku tuko sanad asagoo aan guriga soo dhex dhigo because jaahilnima ka dhamaan lahayd Soomaaliyeed waxa ka dhamaan lahayd qabiil xun ba halka idinka halka baa ka xanuunsantiin halka
meeqan anu halkaa idinka gubaabina intaan idin soo gala oo waqtigeyga idinku dhumiye intaan idin la hadlaya nag وهبينك حلقة هاي وتجي إني أصلي فرض الرهبل دايان ها مرك أصلي فرض الرهبل أنا وتوار وما هين أصلي فرض الرهبل أنا وتوار وما هين أقدر صلي فرض الرهبل الله أكبر رهبل ها الله أكبر قبيل هبل الله أكبر مريحانية الله أكبر كل ساسة إذا كسروا because قبيل هو هذا ندوالتين هذا ضل شوكتان يهذا دبي شوكتان بقبيل مذاح إذا كان قال هالكا سو إذا كنت جيا مرك لا إذا كما كرايو ولين وصع ذا قبيلك ولين قبيلك وصع ذا ها أيضا كشل محا عبد الله فرماتش أوسمي قروح ذا أوجان تلها إنسان أوجان تو إكا وحن مال كان أوجان تلقلي تركيا النومال قليين ضد تركش نومال قليين بعد كلا ساعتين way kala safteen qabiilkii ha qabiil baa loo kala saftay waa ciidanka waa la kala saaray marka annaga meeshaan film baan anu aqaanaa waxan filimka filla Soomaaliya ka socdo kuma jiro anu Mareykan baan ka noqday awalna Mareykan baan ahaa citizen Mareykan anaha anu calankaasan ka qaatay usalli faradal kuma jiro qabiilna wax iga galay ma jirto Mareykanna diin loogama dhaqmaba wax diin oo looga dhaqmo nin walba diintiisa halkaas laabto ku haystaa nin walba qabiilna ma laga yaqaan Mareykan marka anu Mareykan ku garab taagay saacada laga bilaabo Mareykan aan ahay saacada laga bilaabo waana ahay oo Ilaahay baa iga dhigayba nationality-gayga umba Afrikaan ah Soomaali baan ka sii ahay marka laakiin dhaqan haday noqoto nolol haday noqoto shaqo haday noqoto wax walba haday noqoto Mareykan ay sii oo igu garab istaag Soomaali inuu maryoolay oo qadmuun dhalay inta yar in hadlayaan hadalka hadda aan halka la soo fariistay haday helayaan kuwa qaar haday helayaan hadalka igu celin lahayn hadalka igu celin inaan hadlo oo soo fariisto bayna ogolaan iska daaba taaqulayn kala on ka hela iyo halka iska dhigbo marka kuwa qaar ba halka ku jiro iga daawado oo rabin inaan hadlo hadalkaygaas bay dhibsanayaan Soomaali wuxuu ku taray marka dhala Soomaali wax la sheegto miya marka way ahayd Soomaali ma wax la sheegtaa Ilaahay baa idinku dhaari idinka idin weydiinay halka iga daawanaysiin Soomaali wax la sheegto miya hadda war hadalkaas aan hadlaay ee dhibsanayaan iska daa wax kale oo aan runta sheegay runtana ma sheegaan waa beelooshin Ilaahay rasuulkiisa ka wada furta meel kasta adduunka ka joogaan waxaan been ahayn kuma hadlaan waxaan qaa'inimo iyo isdaba marin iyo corruption ahayn kuma dhaqmaanba ya corruption waxaan ahayn iyo tuuganimo iyo isdaba marin iyo qaa'inimo iyo hebel iska celi iyo hebel buush garee iyo hebel ficil micnaheedu ficil waraa shaydaana ficil looga soo bixiyay jannada shaydaan Allahumma najjana shaydaana wuxuu uga soo baxay jannadii uu ku jiray buu ka soo baxay wuxuu uga soo baxay ma taqaana jannadii uu ku jiray wuxuu uga soo baxay kibir iyo ficil ha kibir iyo ficil jannada Ilaahay uga soo saaray markaas nacalada Ilaahay loo ballan qaado oo adiga iyo wixii ku soo raacay waxa la yiri naar baa sugayso oo asaga Ilaahay isu dhaartay marka waxa weeye Soomaalina wadadii shaydaanka hayaan ha iyo waxba been yaa la isu sheegin adeer runta la isku sheego qof kasta oo Soomaali ha yaraado ha weynaade halka qabiil baa kaga jiro waxba laga ma dhaqaajin karo wax laga qaban kara ma jirto wax alla wiilasha yaryar oo hadda maalinka dhaweysto banoonta shabaqa galiyeen waxaan ka codsanayaa inay socodka yareeyaan wiilashaas yaryarka ah oo maalinka dhaweysto dhinaca Soomaaliya u qaabilsana socodka yareeya danay idin tahay idinkana Soomaali waa nacalad dhashay isku halaynina way idin qarxinayaan hadda idin dilayaan hadda now toojiya socodka martiqaadyada tirada badan oo idin sameeyay ha aadina way idin dilayaan baskiina iyo adinka oo hal ceel arkaya wallahi haddaba waa idin digaya wiilashaas yaryar oo masaakiinta ha wiilashaas yaryarka oo masaakiinta oo banooniga soo laaday yaan la laynin kullay waa la layn kullay ugaarsiba hadda ku bilowday hadda ugaarsigooda bilaabana wiilashaas marka waxaan leeyahay gabdhaha dhalay maamooyinka dhalay waxaan leeyahay wiilashaas ilaalsada ha idinka dhasheen adaa hooyoy gabla noqon xafladaan u dhiga mid baa intuu qarx isku soo xiro barta imaanaya markaasuu bal hawadiina kicinaya marka waxaan idin leeyahay wiilashaas yararka oo banooniga shabaqa galiyay maalinta dhaweyto oo guusha u soo hiyay Soomaaliya waxaan ka codsanayaa inay dhaqdhaqaaqa yareeyaan inay naftooda ilaaliyaan ha ilaa Soomaali waa cadow marahuwan cadow Soomaali aragtaya adeer dheerti aragtaya Soomaali aragtaya wasakh aragtaya ha
soomaali indhaha bab ma ku siisa dheertiyaad aragtay dheerti biibooda aragtay dad wada xanuunsanayaad arkaysa oo qalbiga ka xanuunsan oo jiran micnihii tallaabo lama qaadi karo waxay ka waa jalas haddana soomaalidu waa dad jalas ah waa dad masayr badan weeyaan waa dad aan rabin in tallaabo horey loo qaado marka dadkani way xanuunsan yihiin dadkani waa dad jiran wiilashaas waxaan ka codsanayaa in ay tallaabada meeshay dhigayaan ay iska fiiriyaan wiilashaas ha is ilaaliyaan wiilasha ha is ilaaliyaan ifartiintaana waxaan farayaa wiilasha masaakiinta oo maxay tolay waa loo faruur qaniinsanayaa soomaalisaad moodaysa ma aho soomaalisaad moodaysaan ma is ilaaliya wiilalow is ilaaliya wiilasha banooniga astaan tv haddayaan gaarsiinaya halkaana lasoo dhakaar weeye carsh hala sheer gareeyo kaas soomaaliyeed cadow tahay war waxaan iga sheer gareeyaan ka lahay nacla idin dhago idin dhiiqay because danta aan leeyahay waa fogtahay anigu dan fog baan leeyahay dan aad u fog baan leeyahay danta aan leeyahay waxay tahay inaan dadka runta u sheegaan raba ileen soomaali run ma rabto soomaali horta runta bahasha la dhaho way gubtaa waa nacala shaqligin meel kasta ee adduunka ka jooga carab run ha ku falaan wakaas maba jeclaba run haye kaala ma been baanu ka hadalnaa ma been baanu sheegnaa marka iyo isdabamarin iyo corruption iyo bakti iyo qurun maanu ka hadalnaa anigu runtaan ku dhimanaa adeer igu jecloo ama igu nac aday kuu taallaa anigu waxaan run ahayn shabka kaa saarin maa waxaan run ahayn anu igu imaan maysid adeer khayaamaana aqoonin isdabamarin baana aqoonin corruption baana aqoonin tuuganimaana aqoonin diintaydana anigu dabamaryeyn ma ilan diin la dabamaryeynayo idinkaa laydinkugu imaaday uskagnimo idinkaa laydinkugu imaaday qabiil iyo bakti iyo nijaaso soomaali baa loogu yimid soomaali allahu akbar qabiil hebel ku tuko intaad soo gadata sanab guriga soo dhigo biliis waxaan kaa codsanahayaa inaad diinta ceebaynin oo aad hillaac biyihiisa waa cadaystaa inaad hillaac biyihiisa waa cadaystaa roob markuu soo socda cirku soo gugac ma keeno dee iska cadayso waxaa tiraa anu qabiilkaygaan ku tukanahayaayo gurigaan soo dhiganahayaa dheh xaad beenta u sheegay oo allahu akbar ilaahay baan aqaanaa islaam baan ah islaam islaam ma tihid islaam haddaa islaam tahay adeer waxaa ka dhiidhin lahayd waxa dhacayaad ka dhiidhin lahayd ma aadan qabiil soo qaadeen adeer haddaa islaam tahay you know that ha ceebaynin islaamka adeer no you're not islam you're not islam you're not Christian you're not Islam too Christian ma tihid islaamna ma tihid you laba dhexda heebaabaysaa the middle adduunku waxaa ka dhex taagan tahay middle islaamna ma tihid gaalna ma tihid laba dhexdaa socotaa soomaali runta idin sheegaya aniga haddaa igu jeclaanaysa haddaa igu nacaysan I don't care maba kala jeclibo laakiin soomaali waa ay dhalay meesha ku aragta uskag baa aragtay soomaali aragta uskag aragtay you know dheerti baa laga dhahaa maraykanka Somali people is all Somali people meel kasta adduunka ka joogan waa dheerti because qabiilka bahal la dhaha ayay caabudaan waxba lagama qaban karo wax laga qaban karo ma jirto soomaalida dheertiga ah you know dheerti dal haddaad joogtay haddaad dibad joogtid ba dheerti ataa uskag baa tahay uskag soconayo oo dhar loo soo geliyay baa tahay keenin ana uskag soconayo oo surwaal iyo shaati loo geliyay baa tahay tiin naaga aniga igu darhataa tiin naagana uskag dhar loo geliyay oo dirac loo geliyay iyo maxaa la dhahaye iyo xijaab loo geliyay baa tahay because you are uskag waa u qalantaa in lagu dhaho you are stupid you are bullshit you are gengi you are dirty waa u qalantiin wallaahi waana wax kale idin dhehaynin iyo billaahi iyo tallaahi imisaanu idinka waarinayno idin dhehayna qabiilka iska daaya nacala shaydaan ku yaali war qabyaalada iska daaya war qurunka iska daaya war sanabkan qabiilka la dhaha tuura si aad meel u gaartaan you know that maskaxdeed dabka rabaa soomaalida meel walba adduunka ka jooga waxaana ballan iyo axdi ugu ah inaan karbaashkaas wadaa aniga ballan iyo axdi waxaa igu ahaan ku dhahay dowladdan hadda intay meesha fadhiso anigana karbaash leen wadayaa dowladna sideeda banaanba ka hadalkeeda waa iska dooye waa rookay maba ka hadlaya hadda waxay ka dambeeya dowlad maba ka hadlaya waxaa idin sheega waxba kama jiraan hadday ka shallaan weyso oo dalkana laga qaadan waay dalka inta laga qaato baaboor dabada laga wada gelinayo waad soo ogaanaysaan soo ogaada idinka soomaalita ku dhacdata ku soo socoto soomaaliya hadday heshiin weyso
oo ay qabiilka sanabka la dhaho meel inta iska dhigto haddayna gacmaha isqabsanay Soomaali tan ku soo socota dhagay faray baa la dhihi doonaa dhagay faray ilaahayow rabbiyow raxmaanow waxaad weyn doontaa sanabka guriga ku yaalo xilli aad ku tukataad weyn doontaa time ka dhan ciriiri baa lagaaga dhigayaa Soomaaliyo ciriiri wadankana waa lagaa qaadanayaa maxaa jiro adduunyadu inta ka badan nama fiirsan karto adduunka inta ka badan nama fiirsan karaan adeer wax xun baa ka dhex socda Soomaaliya waxa lagu leeyahay fatuud shabaab baa la dagaalamay oo ayagoo dhan baaba wada shabaab ayaga dhan dal iyo dibad meesha joogaanba waa shabaab see shabaab looga guuleysanaa marka waa yahay waxa lagu leeyahay ree hebel hay war shalay markuu gumeystahana qabsaday ee 1960 aanu xornimada qaadanaynay adeer ma qabiil hebel baa la dagaalamay mise annagoo dhan baa jamac ula dagaalanay gumeystaha ma jamac baan ula dagaalanay mise ree hebel baan ula dagaalanay marka ree hebel dhagtaydu intay ku soo dhacayso Soomaali 1 iyo 2 ma joogto no Soomaali dan kaloo laga leeyahay ma lahan iyada dan iska leh Soomaalida dad baa waxa laga dhaadhiciyaa oo la dhahaa carab baa nagu soo duushay fatuud baa nagu no way wax nagu soo duulay ma jirto oon annaga ahayn annaga dhexdeena isku duulle naftirkeena isbaabi'inay innaga islayno innaga isxaasidno innaga nafta alla isu keenay innaga isreebno innaga saa isu daba taagan sidii ma aragta bahal ceersanayo kale sidii ma aragta bisada ay jiirku u ceersato kale baanu isu ceersanaa saasaan isu ceersanaa gagagagaf gabadhii hadasho waxa way waa la masaxayaa wiilkii hadlo waa la masaxayaa وقف الله لا يقف كل يوم لينا إنه داعديه أو ما عرفت وقارن كأسو استاجو ولا مصحية ولا بابينا يا مكان محاسو مالي اللي قصو يلا إسدريسو يلا إسلاينا يسو يلا إسبابينا يسو سمينا قرن هذا يبدل شري قبياجي وينا عود يحضر هذا اللي قدله ركبة هلك أنت يسافر يستن سيدا أنا هذا السوشيال ميديا أنا قلتله أنت اللايف أصلا كلام بعدين أنا لقى أمسي وضايق حنو محيط السيدا dad baa laga hay nin jamaal la dhaho meeshan soo galgalo oo Facebook soo galgalo indhihiinaad ku arkaysan waxba lagama qaban ilaa hadda wax tiir loo soo istaajiyay ma aragteen abwaan bedel ma aragteen horta wali ma aragteen wax abwaan bedel ka hadlay ma aragteen no wax ka hadlay ma jirto waa la kala aamuso shib marka intay sheekadaasi socoto adigana raaxa u jiifan maysid ilaahay baa lagala dagaalamaya dhinaciisa ابن آدم ودنا واحد سكر ويكحنا قيان قال هذا أسو أرديس دود لا قال عاو قال كأسرع وكله يا عوي أنتو ساكو فيري وكله محنك عاونا يعني حتى حنك حدانكو عاونا إنه وكدلا هذا يكون حال هذيك الصومالي جاي هذا اسكون حويسي وهداد محي تلي ضد نقويسي وهدا الدون لا تشنقادي ويسي هذا قال كوها يا إنه سببك كاتوكتو وحكلا وكوها يا مجرتو سنببكو كاتوغانيا وكدليا هيلبكاغنا عشو كدغانيا الا اديغا دقن oo xayawaan sidii soo kale u foofayo sida xayawaaniinta kale u fooftaan aad hadana u soo noqotaan marka xayawaaniin sideedii kale qofka u socdo waa laga faa'iideystaa adar kaliya laga baxaya gaalo iso gargaar lagu gargaari ma orado isu gargaar adiga horta marka hore orado adiga isu naxariiso orado dalka ilaahay ku sii dhiso orado beerahaaga falo orado isku mashquul adiga oo wax qabso qayrka waa tagay alla warbal noo soo gargaar inta yare hadda dawladda iyo siyaasadda loogu orday ee kursiga loogu orday wax kala ma gaalku haduu hadda intuu soo istaago dho 10 shil idin ku caawin maayo shilin idin siin maayo wallahi oo billahi wata la fil Soomaaliya waxaan ku oday gobol loo kala fuqfuqsana gabigeeda midna albaab la carari midna wuxuu la carari dariishad dhulka hataa rooga yaala ee ma arta cagaarka mid baa la ordi doono sababtoo ah waxa halka loo fadhiyo waa gaalo gaala loo fadhiyaa marka dad gaala sugayo gaalkan wuxuu ka rabaa inuu kaliya kaala baxo oo maskaxda kaala baxo oo boodhigaaga gato oo cuno haduu rabo uu ku jarjaro intuu makiinad ku gashto oo saas ku shiito boo adeer dhiigaaga ku qaxweynaya dhiigaaga u cabeeya adigii walaal isku ahaydeen idinki Soomaaliga isku ahaydeen baasa isu daba taagan sidii bisad ma aragtay jiir ceersanayso kale hadday dalka joogan iyo hadday dibadda joogan buu is ceersanayaan saas isu daba taagan marka waxa leeyahay riyaal heesta xasan aadan samatar baa idinku karbaashiya waa ballan iyo axdi heesta doqon baa idin daarnaanaysa Soomaali ani waa soo gala maalin alla keen waa soo galaya inta aan noolahay waa halla heesta xasan aadan samatar aan idinku karbaashiya karbaashkeeda way soconaysaa sheekadan ilaa wax walba idin daarnay
oo si kasta idinla hadalnay oo si kasta waqtiga iyaga idinkugu dhuminay oo si kasta usoo fariisan adoo dabinka kusoo dhacday dalaq blog baan dabada kaa gelinayaa garat ama naag aho ama nin aho wax istubiro halkaas soo gala dabada blog baan ka geliyaa meeshayda anaa iskala adeer anoo xoreeyo hooyadaygi dhashay marka uska gaaga aad la wareegi gurigaaga la fadhi karti haddaad leedahayna Facebook iskandee hadday hooyadaa ay qof dhashay caadi ah oo normal ah that haddaa normal tahay adar Facebook lagaama xigayday soo gal meesha cayaha kusoo qorto waxba bedeli mayso wax ay bedelaysa ma qoraal wuxuu bedela kara ma jirto blog yar baa kugu filan ama delete iyo blog inta la isku ka darsho ina fotada laga galsho awooddaadii oo dhan qoraalkaas uu noqday soo marka awood ma lihid eber baata qof xataa daciifa that marka waxa weey inta iska deysto qoraalka wuxuu neeqada orado sida ana u soo fariista halkaas u soo fariiso geesinimo hooyada markaas ay gabar geesiyada dhashay ama wiil geesiya that wax iska dhig waxba la iska dhigay anagu mashquul anaga shaqo naga dhigan orado shaqo tag waxaan heesta ahayna meesha Firdaws ugu imaan meest heestaas karbaashka dabada idinka gelinaya ayaantan doqon bay ka shidantahay because dadkii Soomaaliya hadda si kasta ula hadasho isma bedelayaan maba isbedelayaan that marka dad niman gabdhaha riib gareynayo anigu gayaan iima noqon karaan ribbin asameynaysiin micnaheedu gabar nin gabar horta asaga dhanba ku fikiraa inuu gabar kufsado micnaheedu ninkaas nin miya hadda Ilaahay kugu dhaareen inuu wax hado oo uu corruption sameeyo iyo wuxuu ku fikirayaa inuu gabar riib ku sameeyo riib haddaad aqoonina kufsiga laga wadaa that nin horta gabar kufsanayo yaa waay gabadhu geey marka gabadha lagu aamini karo waayo ee loo dhiibayo ee la leeyahay hoo gabadhan guurso xaytaas war nafteeda kuguma aamini karaan adi that nin uskaga ah oo nolosha ka dhacay aniga nafteeda kuma aamini kar gabar aan dhala iska daa uska dadka uskaga anu gabar ma siisan karo dad uskaga oo nolosha ka baaba'ay oo riib ku socda riib riib waa kufsi le soconayo oo stop grace meaning nafteeda aniga waa meelaysta adeer that marka dad baqtiye baatiin ord meesha ka dareera qayrkiin ord iska soo dhash dad kufsanayo oo gabar le lagu imtixaamay adduunka ninka Soomaaliga wuxuu u noolyahay inuu gabar furo iyo inuu gabar kufsado micnaheedu wax waalan baatiin wallahi nolosha ka dhacdeen wallahi billahi taala Soomaalida u fiirsatid wax la yaab la ku dhax arkaysaa markaas diin lagaaga sheekeena inta la soo ordo waxa lagu leeyahay oo diinti saanay dhahday sidan mayna dhihin adadada diinti alla la soo orda karbaashka gabdhaha loo haysto waa diinti what kind of people are teen what kind of religion you have adduunka ku ceebowdeen dad dhintay aateen diinna ma haysataan qashin meel la isugu keenayo in la gubo astaahil in waxa tihiin inta la idin gubo in adduunka magaciina laga waayo aawe buraanburkii aan shalay daawanay wallahi billahi taala Soomaalida waxay astaahilaan in inta meel la isugu keeno taraq iyo basiin dabada laga galsho oo adduunka dhan laga tirtiro waxay ku socdaan 40 sano waxay ku socdaan waxaan anshax ahayn bini aadanimada taa wax la dilo iyo wax la kufsado iyo wax la cuno iyo wax la waso iyo wax basay ka shaqeeyaan ilaa waa jareertan maqli jiray wasitaan jecela jareerta waxa la dhaamo taqaana fuulmo iyo cunto basay taqaana wax ka sii liito jareerta Soomaali baan ku arkay Allah billahi taala Soomaali waxay sameynayso wax la arko la maqlay maaha oo ilaahay samaagi ay tahay khas billah alayk buraanburkii aan shalay soo sheer garayst ها ماما مرامبر ما هين ماما هيبو إنه بينها لين درينا حسوس تعدان كل فوق النبري سماتكي تلك إنه أنت أنا بربرين مراكب ولها مقعيد الله به بودلان بربرسيل عكس ما يبراو
iyo banaadir oo calanka buluugii ka babada dushoodu badaheena ilaashoo badan baynu lahayn baashi kalena beeraha waxa ka soo baxa babayga iyo muuska iyo cambihi iyo bambeelmada iyo fooxa iyo beeyadeennaba qaar beecegeeyaynu lahayn iskuulla lagu soo barbaariyo jaamacado cilmiga laga barto badan baynu lahayn cisbitaallo iyo takhaatiir boose la-aanoo danyarto ay ku badhaadho loo bogaynu lahayn bulshadu boqolaal kun oo shaqaalihi ay ku baratamaanoo baahideenna dabooliyo wax soo saar badan baan lahayn ciidamo bariga afrika looga boqo bad iyo bariba ilaasho bayda loo dhigin oo birlabaynu lahayn dayaarado kala baaba oo bayloodo beer adagi beelka intay u xidhaan buubayaynu lahayn maantana barxadaynu naallo si buuxda u aragtaanoo walaalkii ruux bireeyey bohol buu ku dhacayo astaagii beegsan waaye waayahay soomaaliyeed malaa waa baabantihiine intaynaan baabiineen darteennaba la waayineen dunida laynaga baafin xukuumad iyo baarlamaan iyo culimmadeenna iyo beeldayaasha iyo baarlamaankow bisinka intaa qabsataan rayga isku biirsado naga baktiya colaada yaa wax loo sheegayo waaye dhagaxa waa loo sheegayaa dhagax micnihii qof dhagax ah qalbiga ka jiran diin lahayn dal aqoonin dad aqoonin duunyo lahayn caydhoo faqriya tuugsiga ku caanbaxay dalkiisii dumiyey damiir lahayn dadnimo lahayn intaasaa lala hadlayaa habarteeday ka tahay in la joojiyo qabiil hebel iyo ree hebel in la joojiyo waa habarteeday ka tahay habeenka xalay ahaayoo tegi bay ka tahay inaan la joojinaynin marka waxa weeye waanu ku daalay sidaanu wax ugu sheegaynay waanu ku daalnay sidaanu ugu hadlaynay waanu ku daalay sidaanu ulahayn war waxaa joojiyo war waxaa kan joojiyo adduunka usoo qaxday ku dayo wixii wanaagsan waa lagu daydaa waanu ku daalay beer baa leeda beertaada falo qofka soomaaliga wuxuu doonayaa wax uuna lahayn inuu cuno adu waa kanaa ka dhaadhici adu bal waaka ka dhaa wuxuu ku dagaalamayaa wax uusan lahayn inuu cuno uu seexdo kadibna adu bal u fiirsa wax dhaqankaale adduunkan waad usoo qaxday ma aragta adduunka hadda maraykan aanu joogaa labada isdhashay iyo labada isla dhalatay kuma fikiraayo midka kan la dhashay inuu kaas xoolihiisa qaato oo intuu cuno uu seexdo ma ku fikiraayo mana ku fikiri karo mana laga yeelaayo maxkamad baa laisla korayaa hadduu walaalkaa uu lacagtaada ku socdo waa lagaa celinaya waxaa leeyahay war ka tag meesha the use baa tahay soco shaqayso haddaad shaqaysanaynin adeer homeless baa tahay halkaasaad fadhiisanaysaa marka soomaalidu waxay taqaanaa xoolo aysan lahayn oo ay shaqaysan intay cunto inay seexato marka car aqli ha soo kordhiyaa waa kaasaay qof walba wuxuu ku xisaabtanya walaalkiis wax gacanta ku jiro gacantiisa waxaan ahayn waxa kale ku jiro ayuu ku xisaabtay marka soomaali say meel ku gaari kartaa maba gaari kartaba meel ma gaari karto habeenka xal aayo tagay intaad ku fikirayso xoolo aad adigu lahayn oo soo shaqaysan intaad ku fikirayso inaad cunto oo seexato adeer meel gaari maysid adigu waxaa iska dhaadhicisaa adigu waxaa leedahay inaad la imaato oo lasoo shirtagto walaalkaa iska daa hooyada ay aabaha dhaleen inta iska dhig haa faraha kala bax adigu waxaa leedahay la imow shaqayso caseeyo noqo hataa dad shaqadu ceeb ma waxaa arkaysaa dad indha buluugalaho maxay ahayd tolay dhulka xaaqaya arkaysa oo musqulaha gacanta la galaya micnihii wuu shaqaysanayaa shaqaa sharaf bay leedahay mugti marka soomaalidu waxay corruptionka uga dhammaan leedahay oo soomaalida waxa ku amtixaamay inay xoolo dadow ay ku seexdaan oo inta laqaan hadday hataa ma arkin oo aad u diidan col bay kaa qaadanayaan waa kula ciloobayaan caydaaday bannaanka la istaagayaan car u fiirsa soomaalida dhaqankeeda waa dhaqan aad u xun waa dhaqan aad u xun oo very bullshit ah you know that meeshuu shaqo tagi lahaa walaalkiisii hadduu u diido